xaqiiqdii qof walba ee dunidan saaran waxaa abuuray Allah subxaanahu wa tacaala, ha ahaado xayawaan ama bani aadam. Alla weyne waa kan wax walba awooda, kana sareeya koonka oo dhan. Inaan adkaysano xiriga inoo dhexeeya annaga iyo Allah subxaanahu wa tacaala runtii waa mid waajib inoogu ah, si uu Alla weyne raali inoogu ahaado ama raali inooga ahaado mar waliba. Ogowsa dhakhtarka ugu weyn uguna caansan dunida inuu yahay Alla weyne subxaanahu wa tacaala. haddaba aan kula wadaago dawooyinka ugu qaalisan ee Alla weyne subxaanahu wa tacaala inuu diyaariyey. Aqri Qur'aanka Kariimka ah. meelo badan kitaabka ka mid ah ayaa lagu sheegay وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. qur'aanku waxa uu xasiliyaa qalbiga, waxa uuna difaacaa xanuuno badan, maxaa yeelay waa kalaamullah. labada xili ee ugu habboon akhrinta qur'aanka kariimka waa subaxii salaada subax kadib iyo habeenkii inta aadan seexanin ka hor. sadaqada. runtii sadaqada waxa ay ka mid tahay daawooyinka uu Alla weyne subxaanahu wa tacaala inuu diyaariyey. inaad bixiso sadaqada kaliya kaama daaweynayso cudur ama xanuun, xitaa waxa ay difaacaysaa masiibooyinka waaweyn. dawooyinku Alla weyne inoo diyaariyey waxaa ka mid ah salaada, kuwooda waajibka ah ama sunnada. salaadu waa tiirka koowaad ee islaamka lagu waajib yeelay, balse ogow inay tahay dawo kale ee Alla weyne subxaanahu wa tacaala inoogu manaystay soonka waajibka iyo sunnada. soonka Alla weyne subxaanahu wa tacaala waxa uu abaalmarintiisa u bixiyaa si gaar ah adduunyo iyo aakhiraba. runtii in Alla weyne subxaanahu wa tacaala dartiisa aad u soonto waxay leedahay faa'iido badan oo ay ka mid tahay inuu qofku heli doono daawo dhammaystiran oo Alla weyne ugu manaysta. haddaba walaalayaal, si aan u xaqiijino jiritaanka caafimaad dhammaystiran waa inaan si fiican u qabsanaa xariga Allah subxaanahu wa tacaala si uu raali inooga ahaado mar waliba. fadlan walaal, haddii uu muuqaalkani ku soo gaaray adigoo caafimaad qaba, ku shukri Alla weyne subxaanahu wa tacaala, kuna salli rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam.